asalaamu calaykum subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax raadiyaha mustaqbal qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah soomaali ku xaniban dalka libiya oo dalbatay in laga soo qaado dalkaasi oo ay dhibaatooyin ku haysato wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya oo maanta dhaqan gelinaysa joojinta duulimaadyada gudaha dalka shanta urur ee argixiso waxay wadaagaan daadinta dhiigga inta u dhaxaysa waqooyiga galbeedka bariga ilaa iyo bartamaha xeebaha iyo lamadegaanada ee Afrika oo midba midka kale uu ku dagaalamayo fikirada alqaacida iyo daacish ayaa warbixinta lagu yiri waa warbixin ka hadlaysa 5 ururo waxa lagu yeeray argagixisada iyo isbaasi dhiig ku daadinaya qaaradan Afrika warkayaga subax ayaad ku maqli doontaan Mareykanka waxa uu sheegay in xubno ka tirsan al-shabaab uu ku dilay duqeyn uu ka fuliyay gobolka Baay maxamuud Sayd Aadan oo sheegay in khilaafka ka dhex jira dawladda iyo Jubbaland inay ka faa'iideysteen al-shabaab oo dhalinyaro ku tababarata gobolka Gedo sanadahan dambe waxaad moodaa markii khilaafkaas siyaasadeed abuurmay dhulka miyiga bay ku jireen iyo tuulooyinka iyo dhulka ceelasha koox yar oo shabaab ah ayaa ku jirtay dhulkaas laakiin hadda waxaa dhacday inay maaragtay deegaano waaweyn sida degmada ceelcadoo kale ay hadda shabaabka base ka dhigteen fursadna ay u helaan inay ciidamo ku dhex tababaraan gobolka guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka koonfur galbeedna maanta waxay bilaabayaan diiwaangelinta musharaxiinta xildoonka xaalad biyayari oo ka taagan deegaanka dhabbad oo ay ku tiirsan yihiin dad ku dhow 3,000 oo ruux warcaalku 15 beri wax iyo ka sii badan buu sabnaa ciladii waa raadi waxay noqotay tubooyinkii waa la keenay iyadoo dhib badan laga maray markii la kiciyana waxaa tabay hadda uga yahay saacaddan mumbadii biyaha keenaysa dibadda waxaad maqli doontaan in jira 101 sano oo dowladda Talyaaniga xaqiijisay inuu ka bogsaday caabuqa coronavirus mar kale subax wanaagsan waa axad taariikhdu ay tahay 5 bisha 8aad Shacbaan 1441 hijriye dhanka kale 29 bisha 3aad Maarso 2020 markana qodobadaas oo faahfaahsan 5 ururo waxa lagu yeeray argagixisada iyo isbaahaysi ayaa dhiig ku daadiya qaaradan Afrika waxaana ay hoos tagaan al-qaacida iyo daacish iyagoo howlgalla ka dhan ah xubnaha ururadan ay qaaradda Afrika ka wadaan qaar ka mid ah dalalka isbaasiga ama xulafada ah ee dagaalka kala soo horjeeda ururadan Yaxya Maxamuud Maxamed ayaa warbixintan laga diyaariyay soo jeedinaya warbixino ay si gooni ah u kala sameeyeen wargeysyada ugu afka dheer caalamka xog uruurino kala duwan oo la sameeyay waxaa lagu ogaaday in dhiigga daadanaya Afrika ay sabab u yihiin 5 urur kuwaas oo waxa loogu yeero argagixisada ah iyo kuwa isbaaysi waxaa la soo bandhigay tirada dadka ay dileen kuwa ay ku dhaawacmeen weeraradooda kuwa weerar kala duwan oo ay ka geysteen dalalka dhaca qaaradda Afrika kooxda Boko Haram 92 askari ayay dishay halka ay dhaawacday 47 kale kadib markii weerar ay ku qaaday unug military oo ku sugan degmada Bahare oo dhacda galbeedka Jaad Arbacadiina dhaaftay dagaalka askarta lagu dilay waxa uu socday 5 saac oo xiriir ah waxaana ka dhashay khasaare intaas gaarsiisan waana mid ugu badan tan iyo sanadkii 2015 oo kooxdan dagaalka halkaas ka bilowday dad hal mar ku layso kooxda Boko Haram ayaa waxay weerar ka geystaan dalalka dariska ah ee Cameroon, Chad iyo Niger waxaana dalka Chad guud ahaan ay ku dishay in ka badan 2,000 oo qof waana halka loo fartogayo inay ku loolamayaan al-qaacida iyo daacish oo hamigooda bariga dhexe halkaas u rogay telefishinka ABC News oo wareystay sargaal ka tirsan kuwa Mareykanka oo xogta sheekadan banaanka soo dhigay ayaa sheegay in weerarada Afrika iyo kooxaha ay ugu yeeraan argixisada ay sii xoogeysanayaan galbeedkii xeebaha dalalka leh ee qaaradda Afrika sargaalka ayaa tilmaamay inuu ka cabsi qabo in kooxahan ay saldhig ka dhigtaan kuna xoogeystaan Mauritania, Senegal, Sudan, Eritrea, galbeedka iyo bariga Afrika ayagoo isku qaybinaya ilaa iyo 60 urur balse farcooda ugu sareeyo uu yahay al-qaacida iyo daacish sidoo kale waxa uu sheegay sargaalku u waramay ABC News in kooxahan ay qoranayaan dhalinyaro ku biirta fikirkooda waxaana uu soo qaatay kooxda Ikhwaanul Muslimiin ee Masar oo wada falal kalena masiixiyiinta dalkaas kama marna liiska kooxaha anti-blacka ee fadhigoodu uu yahay Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe waxaana ay dileen ciidamo wata koofiyada buluugta oo astaanta waa ciidamada qaramada midooba gaar ahaan kuwa ka socda dalka Uganda waxyaabaha ugu badan ee ku riixaya al-qaacida iyo daacish inay helaan dhalinyarada intaas leeg waxa uu sargaalka ka tirsan Mareykanka sheegay inay sabab u tahay shaqo la'aan haysato aad u sareysa dhalinyaradan waxaa u furan dhowr wado oo kala ah inay ku biiraan kooxaha burcadbadeeda ee maraakiibta afduubata ka ganacsiga muqaabaraadka iyo in la siiyo lacag madax furasho oo xaddigeeda iyo tiradeeda aan loo hayn
kooxahan waxa uu tilmaamay sargaalka u waramay ABC News in dhaqaalo badan ay ku sii jireen dhalinyarada taasina ay siiso go'aan inay qortaan inta ay doonayaan waxaana dhanka kale waxyaabaha ugu badan lagu sheegay inay ka mid yihiin dabeecadaha kala duwan ee aadanaha isla dhaqanka bulshooyinka oo kuwa kala duwan khilaafka diimeed isirka kala duwanaanshiyaha heerarka kala duwan ee nolosha kala jeclaanta ku dhicista dembiyo kala duwan iyo kuwa kale shanta urur ee argaxiso waxay wadaagaan daadinta dhiigga inta u dhaxaysa waqooyiga galbeedka bariga ilaa iyo bartamaha xeebaha iyo lamadegaanada ee Afrika oo midba midka kale uu ku dagaalamayo fikirada al-Qaacida iyo Daacish ayaa warbixinta lagu yiri wargeyska Washington Post oo soo xiganaya sargaal kale oo Mareykanka ayaa dhaxda ugu soo dhacay sheekadan waxaana uu sheegay in kooxaha la kala safan al-Qaacida iyo Daacish ee ku sugan Afrika in ayaga qudhooda isbartilmaameedsadaan dadaalka ururinta isu duwridka awoodooda waxay u adeegsadaan tallaabo waliba oo ay ku gaari karaan wargeyska ayaa sheegay in labadan garab ay xireen 3,000 oo dugsi si ay u gaaraan weeraradooda caalamiga ah uguna gungaaraan wargeyska New York Times wuxuu dhankiisa sheegay isagoo soo xiganaya ergaga qaramada midoobay ee galbeedka iyo Saxaraha Afrika in al-Qaacida iyo Daacish weerar ka fuliyaan Burkina Faso, Mali iyo Niger ay bartilmaameedsadeen buundooyinka kolonyo military iyo dhismayaal dowladda ayna xireen 3,000 oo iskuul oo ay ugu wacan tahay hanjabaadyaha argagixisada waxa ugu yeeray waxay dileen mas'uuliyiin dawladeed hogaamiyaal maxalli ah oo ku tumeen inay la shaqeeyaan maamulada dalkaas weerar ay ka geysteen laga soo bilaabo 2016 ilaa 2019 oo ay ku dileen in ka badan 4,000 oo ruux waxay geysteen marka loo eego sanadkii 2019 qiyaastii 770 dhimasho ah 3 sano ka hor sidaasna ma aysan ahayn ayaa la yiri dokumentiyo sira oo laga helay taliska Mareykanka ee Afrika waxaa lagu sheegay in duqeynta Mareykanka tan iyo 2017 lagu dilay xubno gacan saar leh dhaqdhaqaaqa al-Shabaab waana labalaabka duqeynta Mareykanka uu amray madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo mid ka mid ah lagu dilay hogaamiyihii al-Shabaab Axmed Cabdi Godane Abu Zubeerna kooxda ay u taqaanay Africom ayaa duqeynta Soomaaliya ka geysteen sanadkan 2020 waxay gaaraysaa 55 weerar halka sanadkii hore 2019 ay fuliyeen duqeyn kor u dhaafaysa 60 waxaana 2018 ay fuliyeen weerar duqeyn oo lagu bartilmaameedsaday 8 ka mid ah kooxda Daacish warbixintan oo mid aad u dheer waxaa lagu soo gabagabeeyay xilliga la aasaasay kooxda Boko Haram iyo ujeedka loo dhisayba waxaana magaca kooxdan marka la fasiro uu la micno yahay waxbarashada reer galbeedku waa mamnuuc isla markaana la aasaasay sanadkii 2002 hogaankii iyo galeelay kolkii ay ahaayeen ducaad dadka khudbadaha u jeediya ugu dambeyntii waxaa la soo bandhigay dadka ku dhintay howlgallada waxa loogu yeero argixisada kuwa ku barakacay dhibaatooyinka ay la kulmeen dadka ku nool deegaanada ay ka dhaceen weeraradaas in ka badan 20,000 oo ruux ayaa ku dhimatay weerarada kooxda Boko Haram oo kaliya oo ay ka geysteen dalalka kale ah Nigeria, Niger, Cameroon iyo Chad 3.5 milyan oo ruux ayaa barakacday waxaana kooxaha hoostaga al-Qaacida iyo Daacish ee Afrika ay ku sugan lagu eedeeyay afduub dilal weeraro isugu jira qaraxyo kuwa toos ah barakicin iyo dhibaateen dadkan waxba galabsan sida ay sheegtay qaramada midoobay oo warbixin ka soo saartay arrintan haddaba sidee ay howlgallada u kala fuliyeen ururada hoostaga al-Qaacida sanadan 28 weerar ayay al-Shabaab ka fuliyeen Soomaaliya iyo Kenya sida ku xusan xog ururinta laga sameeyay weeraradooda 22 weerar waxaa geystay kooxda Boko Haram waxaana ay ka fulisay qaaradda Afrika gaar ahaan galbeedka oo ay ku dhex nool yihiin xuduudda 4 dal isugeen labada howlgal waxaa ku dhimatay 600 oo ruux halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen weeraradaas al-Shabaab iyo Boko Haram oo ku kala sugan labada cirif ee kala fog ee qaaradda waxay geysteen weerar ka kala dhacay bariga iyo galbeedka Afrika shanta urur ee warbixintan lagu kala xusaya al-Shabaab Boko Haram anti-balaka oo ka dagaalanta Mali al-Qaacidada Maghrib iyo laamaha Daacish ee qaaradda ku sugan waxaa barbar socda dawlado iyo ururo caalami ah oo iyana ku howlan la dagaalanka ururadan oo galaangal muuqda ku leh qaaradda Afrika isla markaana fuliya weerar ka dhan ah dalka Liibiya waxaa laga soo warinayaa in ay dhibaato ku haysato dhalinyaro Soomaaliya kuwaas oo qaarkood ka baxsaday xabsiyo ay gacanta ku hayaan kooxaha lacagaha madax furashada ka qaata dadka tahriibayaasha ee Liibiya taga kuwaas oo raadsanaya nolol dhaanta dalalkooda sida ay aaminsan yihiin waxaana dhanka kale ka hadashay safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Abshir Cabdullaahi Amiin ayaa warkan dhameystiraya tiro dhalinyaro ah oo joogta magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya ayaa sheegay in muddo 5 bilood ah ay dhibaato ku haysato gudaha dalkaasi oo ay u tageen kolkii hore in ay kaga sii gudbaan wadamada kale ee Yurub
mid ka mid a dhalinyarada oo la hadlay v o a waxa uu sheegay in muddo 3 bilood ah ay ka daba wareegayeen hay-adaha qaxootiga qaramada midoobe u qaabilsan ee loo soo gaabiyo hay-adda UNHCR iyo sidoo kale hay-adda socdaalka adduunka ee IMO. waxa uu sheegay in ay waayeen cid ka jawaabta dalabkooda ah dib u soo celinta dalkooda maadaama dhibaatooyin isbiirsaday ay ku haysato Liibiya, dhowr jeerna ay u qaylo dhaamiyeen hay-ado kala duwan iyo safaaradda Soomaaliya ee Tripoli. magacaygu yahay Yaxya Axmed Nuur waxaan kala soo hadlayaa Liibiya gaar ahaan caasimadda waxaan ka tagnay hadda Soomaaliland baan ka tagnay maxay tahay dabeetana Ethiopia soo marnay dabeetana saasan saxraaga u soo galnay aduu xooshish baan soo marnay lacagan laga soo shubtay dadka xooshishaas oo lagu qaraaco marka ninkii magafaa ay haystay aduu shakhsi ahaanteeda waan ka soo baxay wallahi horta deedan nahay Soomaali yani aan maanta matalaya dadka Soomaali ku dhaqan caasimadda Liibiya wallahi horta xaaladeedu aad u magaranaysaa iyo maanta hadaan ilaado waa ka sheekeenayaa dad baan uga sheekeenayaa dhibaatada meesha nagu haysata mid aan soo koobi kara maaha waa maxay tahay qofka arkaya garan karo dhibaatada maanta nagu haysata caasimadda Liibiya hay'adda ay omta marka hore aan u sijinaa UNHCR oo ku jiray jeelka Taajuura oo aan dadkii uu ku dhacay qasafka maxay toolay qarax dagaal diyaaradu ay soo duqaysay jeelka Taajuura dadkii laga soo qaaday baan ahaa dadkii GDF ka lagu xareeyay baa UNHCR intii wax noo qowweyday ay tiri dibadda u baxa markii aan UNHCR ka niyadjabay aan ogaaday dalkayga meel dhaanta inaanay jirin aan dalkii aan qoray aan sugay 3 bilood maanta in 5 bilood maraysa aan sugay safarkayga markuu safarkii soo baxayna marba hay'ad weyn nooma qabanayso. dhanka kale danjiraha Soomaaliya ee Liibiya Muxudiin Maxamed Kaalmooy oo isna la hadlay VOA waxa uu sheegay in aysan awoodin samata bixinta dhalinyaradan Soomaalida ah ee ku xaniban Liibiya sababta waxa uu ku sheegay in aysan heli karin dhaqaale lagu qaadayo xayiraadda caalamiga ah ee saaran dalalka kala duwan ee caalamka sabab la xiriirta coronavirus iyo dhammaan dhaqdhaqaaqyadii oo joogsaday ayuu arrintan u saweeyay. xukuumadda Soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda socdaalka adduunka ee IMO ayaa dhowr jeer oo hore dalalka Liibiya oo ay ka mid tahay waxa ay ka keeneen tiro muhaajiriin ah oo rajeynayay inay kaga sii gudbaan dalalka Yurub. waan ka waraynaa aynu wada xiriirnaa soo saartay oo meel walba inay xiriirta meel laga baxay lahayn hadda taasoo ay taariikhdu in tabartooda ay dadaal ay ku jiraan si dadkan loo qaadi lahaa inta ay noo sheegeen magal محاورة جديدة لهذا الحقيقة هي مويان السفارة واحد كلام كلام كرنا ونقال عن أما بريو ينور وحوس على واحد ما كمان كرنا إدانا بين كوشيرين ما كرنا واحد نوش شغالين إن دولة ده أنا تسدح تدوات بكاري تدوات كان مركا أول ما هذا ودولة أي ربنا يفران ومركا يقولوا هاي أو مركا دولة ما تدري بالعمل كان أنت كورة ما في لا يسي واحد لو غاري كرانو ما في لا ما كرنا xabsiyo ku yaala Liibiya waxaa weli ku jira dhalinyaro u badan Soomaali kuwaasi oo sheegaya in ay waxyeelo kala kulmaan kooxaha gacanta ku haya waxaana qalalaasa uu ka jira dalkaasi waxaana la leeyahay dhalinyarada afduub ay dalkaasi ku jiraan iyagoo laga qaado madax furasho aad u badan. wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya maanta waxay dhaqangelinaysaa joojinta duulimaadyada gudaha dalka sababta waxaa lagu sheegay in looga hortagayo caabuqa coronavirus. wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa warqad wargelin u diray shirkadaha diyaaradaha ee ka dhex shaqeeya gudaha dalka kuwaas oo si maalinlaha ugu adeegsada ama ay u adeegsadaan dadka iskaga kala gudba caasimadda iyo degmooyin ka tirsan Hirshabeelle, Galmudug, Puntland, Somaliland, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waxaana aad u isticmaala diyaaradahan madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada oo ay u adag tahay ama ku adag tahay safarka dhanka dhulka sabab la xiriirta duruufaha amniga iyo degmooyinka qaarkood oo isku gudubkoodu istaagay waxaana la ogeen muddada ay socon doonto xayiraadan waxaana waa warka ka soo baxay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya lagu sheegay in diyaaradaha gargaarka bini'aadanimo qaadaya in ay wargelin ku sameeyeen wasaaradda ka hor intaysan aanba bixin. Mareykanka ayaa duqeyn ka fuliyay gobolka Bay waxaana uu sheegay in xubno ka tirsan Al-Shabaab in uu ku dilay. taliska Africom ayaa kordhiyay weerarada ay ka geysanayaan Soomaaliya waxaana ay sheegeen inay ku bartilmaameysanayaan xubno ka tirsan Al-Shabaab oo khatar ku ah Mareykanka, Soomaaliya iyo ciidanka AMISOM sida warkan uu ku dhameystirayo Abshir Cabdullaahi.
waa tahay warkaas dib ayaan ugu soo laaban doonaa haddii allah awoodu la hidmo. guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa bilaabaya maanta diiwaangelinta musharaxiinta. 2 maalmood ayay socon doontaa diiwaangelinta sida guddigu ay ku dhawaaqeen. abshir cabdulaahi amiin. magaalada baydhabo waxaa maanta ka bilaabanaysa diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaysa guddoomiyaha iyo ku-xigeenada koowaad iyo labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed. xubnaha guddiga ayaa sheegay in maanta oo axad ah ku beegan 29 maarso iyo beri oo 30 bisha ah in ay diiwaangelinayaan musharaxiinta buuxisa shuruudda ay hordhigeen xildhibaanada ku imaanaya ama xildhibaanada u imaanaysa u tartamidda guddoomiyaha iyo ku-xigeenada golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed. warar mustaqbal ay helayso waxa ay sheegayaan in wasiirada qaarkood ku jira xildhibaanada koonfur galbeed ay ka baran degayaan shuruud la hordhigay oo ah inay iscasilaan ka hor inta aysan u tartamin xilka guddoomiyaha iyo ku-xigeenada golaha wakiilada maamulka koonfur galbeed. saacadaha soo socda waxa uu qorshuhu yahay in xubnaha xildhibaanada cusub ku jira ee ka tirsan wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed in ay qabtaan xilka guddoonka baarlamaanka inay iska casilaan xilka wasiirnimo. xubnaha guddiga ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada baydhabo waxa ay ku go-aamiyeen in maanta ilaa ay beri la diiwaangeliyo musharaxiinta arbacada oo ku beegan 1 bisha abriil ay qaabtaan doorashada guddoonka baarlamaanka maamulka koonfur galbeed. ku laabno isla wararka koonfur galbeed. maraykanka waxa uu duqeyn ka fuliyey deegaan lagu magacaabo buulo fulaayo ka tirsan gobolka abay. maraykanka ayaa sheegay in duqeyntaas ay ku dileen 2 xubnood oo ka tirsan al-shabaab sida uu sheegay ku-xigeenka fulinta howlgallada maraykanka ee africom loo soo gaabiyo. haddii markaynu eegno gobolka gedo, maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland oo wareysi bixiyo waxa uu sheegay in khilaafka ka dhex jira dowladda federaalk iyo dowlad goboleedkaasi inay ka faa'iideysteen al-shabaab oo tilmaamay in qeybo ka tirsan gobolka gedo ay tababar ku qaataan. sanadahan dambe waxaad moodaa markii khilaafkaa siyaasadeed abuurmay dhulka miyigun bay ku jireen iyo tuulooyinka iyo dhulka ceelasha koox yaroo shabaab ah ayaa ku jirtay dhulkaas. laakiin hadda waxaa dhacday inay maaragtay deegaano waaweyn sida degmada ceelcadoo kale ay hadda shabaabka bays ka dhigteen, fursadna ay u helaan inay ciidamo ku dhex tababaraan gobolka, dib iskugu habeeyaan, dakhli aruursadaan. ay fursado badan maanta ay shalay haysanin inay maanta heleen. fursadda haddii waxaa bixiyay khilaafka dowladda federaalka iyo faragelinteeda sharci darrada ku saabsan oo ay ku hayso deegaanada guud ahaan Soomaaliya dhan waa ku haysaa, laakiin khaasatan ay gobolka muddoba ka wadi. waa uu sii hadlay maxamuud sayid aadan waxa uu dhanka kale ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ay u soo mareen qabashada degmooyinka gobolka gedo oo haatan degmo ka tirsan aysan gacanta ugu jirin dowlad goboleedka jubbaland. degmooyinkan doolow waxay noo ahayd bayskii asaaska dib u xoreynta gobolkan ka bilowna. badaxa waxaa la xoreeyey 2011 bishii saddexdeedii. luuq baa xigtay waxaa la xoreeyey 7 bishii saddexaad. 4 maalmood kadib baan ku ruqaansanay markaan badaxa xoreyno. sheeko ma aha aniga waxaan hogaaminayay howlgalkaasaan hogaaminayay qaybka ah anoo xildhibaan. wasiirka amniga jubbaland cabdisiid janan baa jiray, gobernatooriga gobolka maxaa cabdikaliil baa ku jiray, xildhibaan barre hiiraalaa joogay, culamaa udiinka ahlusunna waljamaaca iyo xooga guudi baa qayb ka ahaa. dowladda etoobiya gacan ballaaran ku lahayd oo naga siinaysa. dagaalla isxigxigay oo dhib weyn iyo khasaare badan ka dhashay baa lagu xoreeyey. 7 bishii luuq baa la qabtay. kadib waxaan u jahaysanay inaan garbaarey iyo tuulo barwaaq u ambabaxno, markaasoo cadowga bays u ahayd markaan deegaankan ka xoreynay. abriil baan ayagana ku dhaqaaqnay. markaan maarso degmooyinkan dejinnay maamulada u samaynay bishii ku xigtoo abriil ahayd baan ku dhaqaaqnayna. 11 bishii afraad baan ku guulaysanay garbaarey inaan ka qabanno shabaab, taasoo taariikh weyn lahayd. shabaabkana markaas Soomaaliya inteeda badneed ay haysteen. haddii aan kusoo gabagabeeyo waxaa la hadalhayaa oday da-diisu ay tahay 101 sano oo dalkaasi u dhashay kaas oo ka bogsaday caabuqa coronavirus, waxaana caabuqaanu saameyn taban ku yeeshay dalka talyaaniga. waxaana badi dadka halkaa ku nool ay aaminsan yihiin in dadka da-da ah ay u nugul yihiin dhimashada iyo waxyeelada ugu badan caabuqa coronavirus. odayga ayaa ku noolaa magaalada rimini waqooyi bari ee dalka talyaaniga, waxaana guud ahaan majaladaha ka soo baxa dalka talyaaniga ay hadalhayaan warbixinta ama sheekada ninkan.